السلام عليكم kusoo dhawaada akhyaarey channelkeena nolosha farxadeeda magacayga waa Maxamed maanta waxaan rabaa wax yar inaan ka hadlo oo ku saabsan waxbarashada marka waxaan in la rabaa in la shargareeyo sidii qof walbeeto ama adiga ahaan lahayd ama ciyaalkaada ahaan lahaayeen sidee lagu helaa class walbeeto ama fasal walba oo dhiganaysid number 1 lagu galaa ama A lagu helaa marka aniga run ahaantii waxaan ka hadli doonaa waxyaalahan waxa aniga ii shaqeeyay oo aan ku helay class walbeeto ama fasal walbeeto aan number 1 ku galo ayaan in la shargareyn doonaa maanta arrintaani waxay faan iga tahay ma ahan waxaan rabaa in la shargareeyo walaalahayga aan jeclahay sidii aad adiga ama cunugaada uu kaalinta koowaad ku noqon lahaa ama number 1 loo noqon lahaa markii aad fiirisid dadka ugu sareeya classyada ma akhriyaan 24 saac wax ma akhriyaan 24 saac book ma fooraan waxa ma fiirinayaan laakiin dadkana muhiimna ma aha in dad kale ka aqli badan yihiin laakiin waxay sameeyaan strategy sameeyaan ama waxay sameeyaan waxay hagaajiyaan macnaheedu plan ay sameystaan ama waxa jira waxyaalo ay sameeyaan oo u shaqeeya ayaga oo mar walba ay number 1 kaas ku jooga mar walba top ay meesha ugu sareysa class ay ku jirayaan aniga hadda shakhsiyan iska hadlo classyada runtii classyada qaarkood aan qaadanayay 240 qof ayaa ku jirta classes oo nooc walbeeta ku jiro qof walbeeta wadan walba ku jiro haddana aniga mar walbeeta waxaan macnaheedu tigsanaya oo aan ku jiray macnaheedu dadka ugu sareeya classyadaas ku jiraan ama number 1 ama number 2 ama class walbeeta inaan A helo ay goolkaygu yahay marka waxaan rabaa in la shargareeyo sidee lagu heli karaa adigoona waqti badan aan waxyaalo fara badan waqti badan aan gelinayn iskuulkaada marka waxaan rabaa in la shargareeyo akhyaaray 5 waxyaalood oo haddii aad sameysid aad class walbeeto ama fasal walbeeto aad qaadanaysid aad A ku heli kartid ama kaalinta koowaad ku gali kartid 5 waxyaalood waa wax shakhsiyan aan sameeyo kama hadlaayo waxaa jiraan waxyaalo kale oo fara badan oo la sameeyaa jiraan laakiin waxaan ka hadlayaa 5 waxyaalo waxa aniga shakhsiyan aan sameeyaan ka hadlayaa oo mar walba aan aaminsanahay inaan ku helo inaan ku helo class walbeeto kan koowaad hadaan ku bilaabo waxaan sameeyaa aniga badankeed full time ayaan iskuulka aadaa marka sidaas daraadeed waxaan qaataa 4 ama 5 class aan qaataa badankeed waxaan qaataa 5 class ayaan qaataa marka waxaan ku dadaalaa in aanan qaadanin 2 class oo adag in ka badan 2 class adag bis ka badan ma qaato dadka badankood waxay sameeyaan waxay tahay markii classyada qaadanayaan macnaheedu ma fiiriyaan classka soo adag yahay levelkiisa iyo macnaheedu classy waa kala adag yihiin classy fudud iyo classy adag jiraan marka class fudud haddii aad muxuu ahaa aad 5 class oo fudud aad maanta qaadanaysid semesterkan aad qaadanaysid 5 class oo culusna aad semester qaadanaysid waa dhib badan tahay runtii sidii ay macnaheedu isku manage gareeyaan marka waxaa la rabaa inaad classyada ogaatid adiga haddii aad computer science ku jirtid haddii aad nursing tahay haddii aad muxuu ahaa biochemistry dhiganaysid wax walba aad dhiganaysid waa inuu ogaataa classyada aad qaadan doontid siday u kala adag yihiin marka mar walbeetana advisorska ama qofka macnaheedu kula talinayo ayaa yaqaana waxaas ay saa ku sheegaya classyada sidii macnaheedu classyada qaarkood waa classy aad u fudud iyo classy dhexdhexaad classy aad u adag marka mar walbeetana waxaan sameeyaa classyada aan qaadanayo 2 class oo adag ka badan ma qaati maxaa yeelay macquul ma ahan inaad 3-4 class oo adag aad qaadatid kulligood aad eer keentid ama kulligood aad number 1 aad noqotid waa dhib badan tahay si lagu noqdo marka waxaan sameeyaa 2 class oo adag ka badan ma qaati aniga waxa kaleeto aan sameeyaa oo dad kale aysan sameynin waxay tahay classka markii aan qaato oo register gareeyo waxaan fiiriyaa objective classka fiiriyaa ama classka waxa lagu baran doono muxuu ahaa hadday xisaabta formulaha lagu baran doonaan fiiriyaa haddii ay tahay anatomy physiology waxaan fiiriyaa physiologyga maxay tahay waxaan qeexaa ugu yaraan waxaan qeexaa ama definitionka aan bartaa waa maxay homeostasis acid based waa maxay waxaan bartaa waxa conceptii classkaas lagu qaadanayo oo laga hadli doono si hadhowdii aan macnihii aan gadaal markii aan classka aan qaadanayo si aan hadhowda wixii ay u noqdaan wax muraajaca camal ay ugu noqdaan marka gudaha ma galaayo wax badan ma akhrinayo akhris badan ma galaayo laakiin waxaan fiirinayaa conceptiga classyada laga hadlayo maxay yihiin qeexitaankoodu waa maxay markasta waxay ku fududeynaysaa inaad hadhowda markii aad classka aad fadhidid inaad dadka dhan ka wada horreysid in aad macnihii waxa soo socda laga hadli doono aad og tahay conceptiga laga hadlayo aad og tahay ay kusii diyaarinaysaa arrintaas
oo haddii kaleeto waxay noqonaysaa markaas inaad baranaysid ama haddii aad sii akhriso conceptyadaas su-aalo badan ayaa sii diyaarsanaysaa, su-aalaha muhiimka is leedahay waa sii diyaarsanaysaa, maskaxdaada ayaa kusii diyaarsanaysaa, hadhowdii classka ayaa weydiinaysaa. qeybta saddexaad haddaan u gudubno waxay tahay waxaan akhriyaa syllabus ama waxaan akhriyaa formulaha classka akhriyaa, oo classka macnihii goormo imtixaanka imaanayaa, goormee warqadaasi ay due date tahay oo laga rabaa, waxyaalahaasoo dhan ayaan qoraa, meel gooni ayaan ku qoraa si aan hadhowdii macnihii aan u raadinin ama aan u gafin ina homework laga baahnaa ama project laga baahnaa, si aanan u gafin. waxayga dhan way iisii qoran yihiin, waa la socdaa, marka uma laabti buugga uma laabti ama class course online-ka ma fiiri, already waa igu qoran yihiin, taleefonkay igu jiraan. marka mar walbeetaba every day maalin walbeeta waa isxasuusiya, waa fiirinaa maxaa soo socdo labadan isbuucoo soo socoto ayaan fiiriyaa oo aan kasii fikiraa macnaha sidaan aan u waajihi lahaa arrimahaas. midda afraad oon sameeya waxay tahay waxaan isku dayaa maalin walbeeto in aan 30 ilaa 1 saac inta udhexeyso in aan maalin walbeeto wax un akhriyo. sababtaan u sameeyo 30 daqiiqo ilaa 1 saac inta udhexeyso waxay tahay baaritaano badan oo la sameeyey 1 saac wixii ka badan ma focuskaada aad buu u yaraanayaa. qeybta ugu dambeysa ee ugu muhiimsan waxay tahay qeybta shanaad, waxay tahay waxaan run ahaantii ay dadka badankood aan ku arkay, dadka badankood qaladaadka ay sameeyaan waxay tahay waxay sameeyaan markii ay classka ay qaadanayaan ama classka markay registereynayaan oo classka la isdiiwaangelinayaan, waxay ku fikiraan isniinta iyo arbacada ama mondayda and wednesdayda keliya waxaan qaadanaya 2 class aan qaadanaya ama 3 class aan qaadanaya, hal maalin kaleeto macnihii hal class aan qaadanaya si aan galabtii shaqo u aado ama si aan macnihii aan banooni u ciyaaro ama waxyaalo kale aan u daawado. marka waxay sameynayaan classyadii dhammaa ayay waxay ku koobayaan Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. so marka waxay isku dayaan inay classyada isku dhaweeyaan si hal mar u tagaan, hal mar classes usoo qaataan, classes u galaan, marka usoo dhamaado class kale haddana u gudbaan u galaan, haddana kasoo baxaan gurigooda imaadaan ama shaqooyinkooda qabsadaan ama waxay ku fikirayaan markaas haddaan wax akhrisan kara galabtaas aan wax akhristo si aan waqti u helo. balaakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay sidaa ogtihiin imtixaanaadka marka la qaadanayo badankeed isbuuca ugu dambeeya ayaa waxaa la qaataa finalka dhan la qaataa ama hal isbuuca midtermka la qaataa. iskuolka oo dhan midtermka oo dhan waa hal isbuuc, finalka oo dhan waa hal isbuuc badankeed. marka waxaa dhacayso adigii inaad classyadii 2 class oo 3 class aad hal maalin qaadanaysay, 3 class haddii lagu yidhaahdo finalkooda ayaa maanta lagaa rabaa ama midtermkooda lagaa rabaa haddadaan ayaa qaadanaysaa, oo markaad kan kasoo baxdid 2 saac markaa lehed, kan kaleetana 4 saac aad leedahay, kan kaleetana 6 saac imtixaan aad leedahay. marka macquul ma ahan in aad heshid classyadan inaad heshid wax macquul gala ma aha. maxaa yeele imtixaan final waaye, kee akrinaya marka waaye ma midkaanaad waajahaysaa ma midkaana waajahaysaa midkaan waajahaysaa. marka aniga ahaan waxa aan sameeya waxay tahay haddii aan awoodo ama schedule la isiinaynin, haddii aan awoodo badankeed waxaan sameeya ilaa xitaa waxaan sameeyaa maaragtay sabtiga inaan qaato classyada, jumcada iskaba dhaaf, waa macnaha classyada waqtigaan kala siiya, spaceaan kala siiyaa, waa kala faraariyaa. marka waxay noqonaysaa haddii aan subaxdii class qaato galabkii class aan qadaa, waqtiga ii dhexay dhan waxaan rabaan sameysan karaa, waa shaqaysan karaa, haddaan raba shaqaan aadi karaa ama kasoo laaban karaa. ama waxaan sameeyaa oo kaleeto waxay tahay sabti, axad, isniin, talaado, arbaco, khamiis, jimco intaba ma aragtay waa isku wada daraa. waxaan isku dayaa inaan maalin walbeeto hal class aan qaato, subaxdii hadday tahay, haddii ay tahay galabkii hadday tahay, si waqtiyadii kaleetana aan u shaqaysto. balaakiin aan macnihii aan imtixaankaas hadhowdii oga waxayso. marka waxay noqonaysaa haddii finalka marka la gaaro in aan berita imtixaanka keliya oon leeyahay inaan caawo dhan focus gareeyo ama galabtoo dhan focus gareeyo oon macnihii imtixaankaas keliya aan ka hadlo. haddii marka maalinka ku xigtana inaan imtixaan kaleet haddana u jeesto oon macnihii aan focus gareeyo imtixaan kale aan sameeyo. marka akhyaara intaasaan kusoo gabagabeynayna haddadaan run ahaantii sidaan hore kugu sheegay arrintaani wax faaniga ma ahan, waxaan u sameynayaa inaa macnihii aad dad inay ka faa'iidaan. I hope inaad adiga ka faa'iiday ama cunugaada ka faa'iiday.
insha allahu tacaala marka intaas kusoo gabeynaya haddaan subscribe dhihin fadlan channelkeena subscribe dheh beelka taabo si macnaa video cusub markaan soo gelina uga faa'iidid marka waxaan leeyahay best of luck to all students out there.